waxay ila tahay dee aniga waxaa laysoo kiciyo inaan shirka furo kuna duceeyo waayo dadkii aqoonta u lahaa aad iyo aad uga hadlay aqoonta dhaqaalahana waa layga badiyaa si dee doctor Saacadna ma yihi ilaa qorqoda gaara basasha iyo dhirga wax lagu kariyo aad iyo aad bay mahadsan yihiin cidii soo qalqaalisay shirka iyo cidii soo qabanqaabisay iyo dhallinyaradii halkan timid iyo wasaaradihiiba boqolkiiba 50 baan hambalyeynaya boqolkiiba 50 ayaan hambalyeynaya 50 kale waa kala hadhaya distoorkaan ay farayaan kala hadho 50 ka waayo distoorku wuxuu leeyahay muwaadiniintu way isma yihiin shaqooyinka dalka iyo xilalka iyo mid walba sagaalka wasaaradood ee Saacadiyo hogaaminaya Dr. Burhan boqolkiiba 50 baa ka maqnaa dadkii shaqada qaban lahaa oo muwaadiniin hawsha siyaasadda xukuumaddu ma ahayn hablaha haddii loo diiday siyaasaddii iyo boosaska waaweyn haddaynu ognahay hay-adaha dhaqaalaha inay ragga kaga fiican yihiin dee nagama kiin qabanayeen inaad noo soo raftaan 100 inoo gabar qol ku dhex jirin taana boqolkiiba 50 waa aad iyo aad baan uga hambalaya shaqada qabateen laakiin boqolkiiba 50 waa ka dhiman caqligii iyo fikirkii iyo waxqabadkiiba taana waxay tahay in kuwa dambe la sixi doono loona kordhi doono halkaa maanta marka laga bilaabo dhiskashanadii hawsha hadhay qaybtaa in la soo buuxiyo taana intaasaan ku dhaafay ogeli maayo hawl kale dadkii yaqaanay baa jooga fikradda guud u maroraya 3 qodob xoog ay noo saar dhibaatooyinkana haysta si aan uga baxano dhaqaale xumada iyo tirada la sheegay ee mustaqbalka soo socota aniga waxay la tahay maanta baahida inoogu weyn waa sidaynu biyo u helnaa isbeddelkii cimiladu wuu soconayaa joojin kari mayno abaari way soconayaan biyo yaraantina way soconaysaa ama cimiladu waxay keentay labaha mar waxa yaraanaya roobkii marna xilligu dii jiray wuu idaaranaya dhibaatooyinka sanadahan haystaa waxa weeye dhirta oonu ku noolahay iyo ugaadha iyo xoolaha iyo dadkuwa maskaxdeena iyo wada shaqayn jireen xilli roob sida ay hawadu waqtiga ku baagatay مثلا سوالنا واحد عاوش حد واقع oo ma ogola maqashii ku dhawta abaar dhirta Soomaaliland ka baxda badankeedu garoorka quraca maraaga sogsogta iyo mid waliba saacad baa jirta oo manka tuuro bisha la yiraahdo inaga ugu beegan March حاجة كلامنا أبصار قالوا سير موجودة ومرة كنا صوت تريو هبيك الدبشة بقول يستأثر هبيك صار بعض إحبروا أيام نرتول واحد ترتاح منك فرتاسي شك هادو بشار وبيرو بشار توقع عشوا تواجد مرة ساعة وحنت نرتو مرة واحد ساعة قالوا كيو سير عليه سير جاي قول عيو سير جاي نركي الدر نرتي الدرك أصيبها بايس حوالينا والله من dadka maskaxdoodii ninkii reer miyiga ahaa markuu la xadoonka ku sii daynayo oo maqash ku tala galay way wadaartay bishii aan qoysad u dhaaf dherer male national sana warba ku rutay ogaad waa la mid marka isbedelka roobka markuu dooro u daayo waliba si hore aanu u daayay umuuma laga yaabo inuu meel maro in yar kooban inuu maro leeyahay yar wada soo kordhay marka waxaan u baahanahay wixii biyo cirka ka yimaadeen waxa jiro biyo soo badan oo filan ma jiraan dalkeena wuxuu ku soo ururay magaalooyinka miyiga waa laga soo dhamaanaya reer miyiga markuu meel ka taga garan waayo xoolo dhamaada anu kana baarawo halka magaalada lagu urursan yahay ayuu ku soo ururaya magaalada cayn isu urursan baa soo baxaysa cayn urursan waxaan ugu daran dadkii biyaha marka maanta biyaha magaalooyinka u baahan abaarta haddii loo jeedo gaari saar xoolaha loo saaro magaalooyinka gaari saar
marka waxaynu u baahannahay magaalooyinka inaynu u qabanno biyo badan dadku soo ururay Soomaaliland magaalooyinkeeda waaweyn laba magaalo mooye inta kale waa kharaadantay magaalada Burco iyo Ceergaabo inta kale waa kharaadantay waa gaargaarsaan ku jira meelihii dhawaa laga soo qabanay baanta markaa dowladaha wax noo bariyo rasiya inaynu wax walba biyo ka hormarino biyo qabanno biyaha cirka waa qodob waa ogyahay qolada hawsha wada dadkana waa ogeysiinay kalabaad waxaan ku tali lahaa in xoog la saaro in maskaxda sida uu fikiraya attitude wax laga bedelo oo kulli qolooyinka anigoo kale ee waaweynaaday iyo rag kale ila daada maskaxdoodu geel iyo ari iyo gabay iyo garoor bay ku agtahay dhalinyarada in loo bedelo in xagga badda ay u guuri karto maadaama cimilada isbedeshay dadka in xagga badda u rari karo oo xeebaa lagu noolaan karo oo dadkan oo hadda ku dhibtoodaan kuwa dambe raaxa badda ka helaan inaynu arrintaa maskaxda loo jeedinna waa soo jeedina tasaxaadna waxaa odhan lahaa in allayr jaban aynu dooran layrka si kastaynu u marayno haddaynu kan Ethiopia ay ka iibinayaan Afrika oo dhan qaybteena ka qaadanayno haddaynu ka dabaysha dhali karayno ka cadceeda waxaynu u baahannahay inaynu u helo layr jaban layr la'aan ama energy la'aanna meel gaari mayno aru saddexdaas aan lahayd dusha laga ilaaliyo sida kale waa nabad galbeed baa ka yimid barwaaqo ku jireen roob badan bay heleen labada gobol oo iyaga ku koobano sidaan u dhafo Hargeysa badkiisa aan soo gaarin waa beeri aad bay u qodeen way ku tala galeen dadkana markay roobka iyo dhibcada helaan dadkii xoolo way faraxsan yihiin macdinta musliso meesha oo lagu wadaa nabadda way haday intaasina waa iga war aad iyo aad baan ku hadlayaa waxaan ka rajaynayaa in qolooyinka baanalada soo saari doonaan wax ku qodobka ugu dambeeya waxa weeye halkaa dowladdu waxeedii xisaab ahaa waxaan way soo dhigtay miisaaniyadeeduna waxay ka muuqataa mar walba website-ka iyana waa bannaanyaal dalkana waxaynu dalku waa free market oo dhaqaalaha shacbiga haya iyo baaxmusharka shirkadaha waaweyn iyo baaxmusharka waxa laga rabaa ila waa hanti qaran waxayna iyagana inay waxooda transparent noqoto sida u shaqeeyaan sida u shaqo galiyaan waxay macaashaan waxay dalka marayaan deegaanka la ogaadaa inay u qarsoonaanaysa banaanka u soo dhigaan saam soo jaaqaad aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum